السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومahadsantahay موليد runtii Star FM qayb badan oo aan ugu mahad celinaba kamida in dadka gaarsiiso Soomaalida waliba luqada Soomaaliga ku hadasha in waxyaabaha dadka u ah saldhiga oo asaaska u ah dhaqanka iyo luqada oo ay ku baahiyaan had iyo goraale wixii horumarinteeda ah boqoshadana soo boqdana waa uga mahad celinayna waxa weeyaan horta wax kasta oo aad aragto qof bani'aadan ku talaabsado waxa ka horeeya marka hore shaygu inuu ku soo noqdo qofka dabadeedna uu tala ku dhaliyo taladaasuna ay keento inuu ku dhiirado shaygii sidii uu uga mira dhalin lahaa oo waxa kan hor yaala oo wax uga bedeli lahaa oo wax ka fiican ama kaba tayo badan hadii uu isaga laftiisu roon yahay laakiin aanu markaa tabar lahayn marka la tayo gelinayo adoo maxsan intaana sii gudbin Cabdifataaxow sidaad sheegayso qofka inuu wax bilaaw waxa ka horeeyay inuu ku dhiirado Cabdifataaxan maxaa kugu dhiirigeliyay inaad xaruntan furto waxa igu dhiirigeliyay in aan furo xaqiiqdii anigu markii aan arkay systemka dadka da'yarta ah oo da'doodu soddonka ka hooseyso nidaamka iyo systemka ay ka aaminsan yihiin luqadooda iyo dhaqankooda oo ah mid ay marba marka dambaysa ka sii fogaanayaan oo luqada kaleeto oo umad kastaana marka la soo qaado luqada ay leedahay iyo dhaqankeedu way iswaafaqsan yihiin haddaad luqad kale barato dhaqan dad kale aad baranaysaa ereyada la isticmaalayo iyo materialka la isticmaalayo intaba dad baa iska leh dadka dhaqankiisu inta badan waxa laga yaabaa inuusan waafaqsanayn dhaqanka inuu leenahay oo ah dhaqan ku salaysan sharciyada islaamka inta badan oo laga yaabo samir jaahiliga iyo waxyaabo la isticmaali jiray oo xoogaa khilaaf inuu jiray laakiin hadda waqtiyadii dambe dadku wax barto diinta bartay ay iyagu meesha ka baxeenba intoodii badnayd laakiin muhiimadda meesha taala waxay tahay afka hooyo iyo dhaqankaagu waa walaalo waana isdhaleen waana isku mataansan yihiin waana isku cadfan yihiin oo ma kala bixi karaan haddii dhaqankaagu aad ka guurto luqadana waad ka guuraysaa luqadda aad ka guurto dhaqankana waa ka guuraysaa dadkaasu qoraalada ay samaynayaan iyo hadallada ay ku hadlayaan iyo aniga markii wax badan oo dhalinyaro ah oo aan wada hadal samaynay ama aanu sheekooyin dhex mareen ama barnaamijyo aan isugu nimi waxa ii muuqatay inayba ka yihiin gablan luqadii hooyo oo runtii ah tii qofku uu ku faani lahaa oo ummadaha adduunka aad arkayso nin walba luqadiisu horumariya sidii uu u noqon lahaa qof wixiisa ay meel maraan oo xitaa materialkiisa waxa uu isticmaalaya berito uu suuq heli karo laguna garan karo isaga astaana luqadu wada iyada u ah qoomiyada marka haddii ay luqad leedahay luqadu haday qoran tahayna kaba si fiican runtii marka la eego caalamka guud iyo systemka luqadeenu ka jirto aad bay u fiican tahay oo horumar badan baa laga sameeyay ragba geliyay waqti dhaqaale geliyay meel walba isla taagay ilaa heer ay noqoto luqadaha kamida oo dhaatooyinka la geliyo oo materialka la isticmaalayo xitaa lagu soo qoro marka taasuna waxaan rabnaa insha Allah bidnillaahi kariim in ay dadka laftiisa da'yarta ah ay noqoto mid ay ku dhaqmaan oo bartaan korna loogu qaado dhinaca dhaqanka iyo luqadaba wad maasantahay waan ku fahmay aan u soo laabano marka xaruntan iyada ah faahfaahin kooban hadaad inaga siiso casharada siday u baxaan xilliyada ay baxaan yaa fursad loo siinaya in uu dhaqanka barto maxaa qarash oo la xiriira waa su'aal muhiim ah oo dadku xataa laftoodu in ay sii ogaadaan ay u fiican tahay runtii meesha tan aanu furnay waxaan u furnay hadaf kale maaha in la badbaadiyo dadka aan ka hadleyno oo ay luqadda bartaan si ay dhaqankooda u bartaan dhaqankana waqti baa la siinaya lafteedu maaha luqad kaliya la bari maayo luqadda dhaqanka lagu baraya lagu dhex baraya naxwihii manhajkii Soomaaliya 73 la qoray baanu qofku markuu fahamkiisu xoogaa wanaagsanaado la baraya si uu waxa uu qoraya uu ogaado waxa ay yihiin iyo erey kasta meeshu galayo iyo xarfaha isbedelaya qaabkiisu bedelayaan iyo systemkooda iyo macnahooda intaba materialka la isticmaalo oo dhaqan ahaan loo isticmaalana wax badan oo kamida insha Allah waanu bareena mid walbaba inta erey loo yaqaano iyo systemka loogu magac daray asalkiisu meeshu ka soo jeedo iyo hadii la idankeeda leeyahay gobolada Soomaaliya iyo lahjadaha kala duwan oo localka ah intooda badan laga yaabo marka gobol loo eego inay waxyaabo yar ku kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin kulli waa kelmada kulmiye baa jira oo general loo wada garanayo kuwaasna in wixii common ay bartaan waxa kalena localka ah oo hoosana gobolba waxa shaygan lagaga hadlaa kana saasa laga hadlaa intaas gobol sidaas la yiraahdaa si ay u bartaan waxa kanu berito inuu yahay ereyga la isticmaalayaan erey common oo dadku la wada garanayo iyo inuu yahay erey local oo deegaan kaliya laga isticmaalo ay u kala soocaan waxa soo dhamay waxay kamid tahay faa'iidooyinka aanu rabno inaanu ku siino dadka oo horumarin ahaan u siino marka waqtiyada la baranayo marka la eego subaxnimada hore 7 subaxnimo
maalinta isniinta ilaa arbacada 7 subaxnimo ilaa iyo 11 barqanimo buu furnaanaya waa 3 xiisood baa la galayaa xiisadina waa 1 saac galabtii markay noqoto hadii ilaahay idankeeda leeyahay ma jirto wixii ka dambeeya ilaa iyo cishaay maqribka dhaxoodana mid baa xiisad baa jirta inkastoo xiisada u badanayno insha Allah inaanu dhaqanka ka dhigno laakiin kulli hadda qoraal bay ku soconaysaa waxa kale oo jira dadka aan waaweyn oo aan qori karin xisaabfalada xisaabaha la isku dhaho xisaabfalada oo afarta xisaabfal iyo jajabiyada iyo waxyaabaha si loo kala gooyay si la isugu dhiftay iyagoo aan haysan calculator isticmaalisay gacanta uga baran lahaayeen waxa kale oo weheliya iyadana aanu bareynaa qofkii wax qori kara isagana qurxinta farta iyo qaabka uu u qoraayo naxwaha aanu bareynaa ka bacdina qurxinta farta aanu bareynaa sida intaas oo dhan waxay tahay qayb kamida in dadka la baro dadkana hadda diiwaangelintiisa waa socotaa waxna waa yimaadaan kulli hadda waa iskuulku waa furan yahay insha Allah bidnillaahi kariim wixii sabtida iyo axadda waxa la imanayaa 8 subaxnimo oo waa 2 xiisadood khamiista iyo jimcaadana ma jiro class haddii aan ka hadalno waa la diiwaangelinaya qarashka la isku diiwaangelinayo iyo casharada iyaga inta ay socdaan qofka lacagta ka baxayso fiiga classku waa ku shilin 200 registration way jiraan oo bisha koobaada wixii ka dambeeyana fiigiisu kunbuu noqonayaa qofku maada kasta oo qaadanayo kamida qayb kasta oo qaadanayo haday tahay xisaabfalada waa qofku markuu qaadanayo goonahan baa loo barayaa xisaas uu qaadanaya dhaqankana iyo qoraalka kale Soomaaligu way wada socdaan iyagu waa isku hal xiisooyinku baa loo kala bedelaya waxa laga yaabaa inuu xiisadna maalin la qaato dhaqan maalmaha qaybto toddobaadkii inuu maalin ama laba laga siiyo inta kale tan uu qaato casharada caadiga ah oo qoraalka ah iyo sidii loo baran lahaa luqadda guud ahaan bil walba ma kun shilin baa maada kasta waa kun shilin maya markay maado noqoto waa kun shilin wuxuu meesha lagu bartaa horta sideedaba waa 2 maadoba guud ahaan dhaqanka iyo luqadda wada socdo isku hal maada ah oo aan kala harayn oo because waxyaabaha aan ku barayno luqadda waa dhaqankiya luqadda wax lagu baranay material kala isticmaalaya waa qaabkii loo dhaqmaayay iyo sheekooyinka laga sheekeynayo sheeka xariiro baa ku jiro oo gabayaa ku jiro oo systemyo badan oo qofka dhaqanka waafaqsan oo laga baranayo oo ficil ahaan loo tusaayo shayga adag oo dhan la tusaayo la oranayo waa shayga noocaas saasana loo isticmaala qaabkaas loo isticmaali jiray haddana wali wixii isbedelay oo tirmay oo waayo hore ah oo oldiyana waa loo sheegaya qarniga noocaas waxa la isticmaal jiray qarniga dambeena saas haddana sidaas la isticmaalaa marka sidaas loo baraya dhaqan ahaan maadada kale to waa tan xisaabta oo xisaabaadka la barayo qofka aan qori xisaabta aqoon oo basic ah oo dadka waaweyn waan ku fahmay aad u mahadsantahay aan u soo gudubno marka waxa laga yaabaa inaad maqasho qof leh anigu Soomaali ayaan ahay yaani dhaqankayga waan garanayaa luqadda Soomaaliga waan aqaana oo waan ku dhashay su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dhaqanka Soomaaliyeed oo af Soomaaligu qayb ka yahay barasho u baahan yahay buu u baahan yahay qofku waxa xukuma meesha uu ku nool yahay iyo sida uu nool yahay sidaan ogsoonahay anigu waxaan kamid ahaa dadkii luqadda Soomaaliga wax ku bartay oo xaqiiqda marka laga hadlo anigu af Soomaaliga basic waxaan kaga bilaabay primary ilaa secondary baan kaga baxay wixii dambe to jaamacadda iyo wixii lamida iyo kuleejooyinka kalena luqada kale ayaan ku bartay laakiin aanu dhisan oo dhowr iyo 20 jira ayaan ku gaaray luqadda marka iskuulka la xiro Soomaaliya 3 bilood buu xirnaan jiray oo xagaaga 3 bilood baadiya la geyn jiray geel baan raaci jiray waxaan la igu diraayay intaas oo dhan waalidku igu tabcaayay in aanan dhaqanka ka suurin oo aan barto dhaqankayga aanan ilaawin oo aanu xagga dhaqanka iyo luqadda ka dhisan hadhowdii noqdo nin u diyaarsan inuu berito dad is hortaagi karo message gaarsiin karo wuxuu gudbin kara si wacan aanu nimaano marka caqabadaha hawshan iyada la xiriira dadka in dhaqanka la baro mise laga dhaadhiciyo dhaqankooda in ay bartaan caqabadaha la xiriira caqabado badan baa jira oo taas la isku ma hayo dadkuna way wada og yihiin waxa dad badan ugu dhiiran waayaan waxa kamid ah in caqabadaha hor yaalla bay og yihiin laakiin waxa ilaahay mahadiisiya in aanu ilaahayna soo aanu ku dhiiranay in aanu u bareerno in dad wax ay qalbiga ku hayn sugayna in aanu talaaba hore u qaadno oo isku day samayno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo iyagana uu uga dhigo wax oo wax manfaca berito qaabkii ku jiraana wax ka bedeli kara caqabadaha ugu waaweyn waxa kamida waalidiinta oo runtii caruurta aan u heelanayn sidii ay dhaqankooda iyo luqadooda u xanan lahaayeen oo waalidku qayb buu ka yahay qaybaha waaweyn buu ka mid yahay ahmiyadda ma saaro
waxyaabo kale iyo luqado kale iyo system kale baa laga yaabaa inuu culays ku taaro taas oo macnaha ugu weyn ugu jeedaan ay ka noloshii dhamayd iyo qofka marjiciisiiba laga qaalib yeelay berito wuxuu ku shaqaysan karo ama dadka ay isku fahmayaan kale inuu barto baa iga fiican inuu luqad Soomaaliya ku habsamo waana qalad because qofku waxa uu ka yahay intuu dhaqankiisa ka hayo ayuu tan kale ka baran karaa inta luqadaada ka taqaan luqad kale ka baran kartaa because erey kasta oo siyaada iyo system kasta oo aad taqaano luqada kalena waad ka helaysaa laakiin haddaad gablan ka tahay iyada tan kale uma aad dhalan ma lihid adigu forum weeyaan waa lu isgarooba xitaa waad ilaa wasa berito haddaadan ku shaqayn gartay anu nimaano marka xaruntan kuwa lamid ah oo dhaqanka lagu barto haddii laga hirgeliyo deegaanada kala duwan oo Soomaalidu degto maxay soo kordhin karaan saameynta ay yeelan karaan wax weyn bay yeelan karaan hadda saan ogsoonahay Soomaaliya manhajyo kala duwan oo ummado kale leeyihiin baa lagu bartaa ardayga hadaa weydiiso juqraafiga dalka iyo dhaqanka dadka ma sheegi karo ardayda jaamacada ka bixisa xitaa Soomaaliya waxay ku sheegayaan juqraafi carbeed ama afrikaana ama wadamo kale ah iyo systemkoodii bay kaga waramayaan wadan hebel intaas xad buu dadka la wadaaga intaas buuraleeya intaas dhul degan oo hoosa intaas haylaana intaas dhul buureeda intaas badda wadankaas waa inta wadanka masaaxadiisu intaas leegtahay buu kuleeyahay macnaha waxa kiisa hadaa ka weydiiso gobolka uu joogo gobolka ku xiga kuma sheegi karo waana dhibaato aad u weyn caqabad weyn bayna ka tahay laakiin wax badan bay ka taraysaa haddii la saaro culays sida loo saarayo luqadaha kale iyo systemka kale oo ummadaha kale in iyada culays haddii la saaro wax badan oo horumara dadku uu sameynaya qofku xataa inuu dadka wax gaarsiiyo waxa u fududeeya inta uu ka yaqaan luqadiisa iyo dhaqankiisa because dad ajnabi wax u sheegi maayo dadkiisa hadduu dacun u sheego ma sheegi karo maqrif intuu soo taagay dabcan saasa la yiri keer markuu dhaho cabaarba mid English ama mid Sawaaxili ama mid Carabi u dhexgelinaya wana wax adag markaad eegto warbaahinta waa la mid dhibaatooyin badan iyo caqabado badan bay ka qabaan ay luqadda Soomaaliga hodan kama aho inay dadkii wax u sheegaan way rabaan sidii wax u gaarsiin lahaayeen way adkaanaysaa inuu marka luqada ka ku hadlaan oo dadku u gaarsiiyaan dadkiiba waxa kan uma dhalna aad ka sheekaynaysaa qayb baa ka tiin burburka waan qaadanaynaa aad u mahadsantahay ma sha Allah hawl fiican ayaad wadaan ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa waxay u egtahay in uu farqi u dhaxeeyo mise uunan xiriir dhow ka dhaxaynin dadka dhaqanka garanayo oo aad ka mid tahay iyo yacni jiilka hadda soo kacay mise dhallinyaradaba fariintaada ugu dambaysa oo aad u jeedin lahayd dadka sidaadoo kale dhaqanka garanayo dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay ku dhageysanayso waxaan u jeedinayaa dadka da'yarta ah markaan ku horeeyo waxaan leeyahay ama ku buurinayaa ama aan ku waaninayaaba in ay ogaadaan in uu dhaqankoodu yahay kay bari dadka ugu faani lahaayeen kan astaanta u ah oo dadka kale laga garan lahaa kan u baahan in ay berito marjac u noqdo oo hadhow markay ku noqdaan hoygoodii oranayo markuu yiraahdo wadan hebel baanahay waa in astaamihii wadanka iyo dhaqankeedii iyo luqadii laga helay hadii laga waayo ma tiide qofku kalarka kuma noqdo luqad muuqaalka guudna kuma noqdo dharku sitana kuma noqdo wuxuu ku noqdaa dhaqanka iyo hadalka uu ku hadlayo luqadu ku hadlayo waxa ay tahay iyo cidda iska leh iyo dhaqanka uu sito qof marka rabto inaad baratana dhaqankiisa la bartaa wuxuu yahay baad ogaanaysaa iyo ciduu yahay marka dhaqankiisa barato uma baahnid inaad sii daba gasho cid uu abtirsaday dhaqanku isaga abtirsimo ah oo lagu abtirsado taas waxaan ku buurinayaa inay u diyaar garoobaan oo ay bartaan luqadooda sidii ay u noqon lahaayeen berito kuwa badan oo dhalinyaro ah oo runtii anigu dadaalayana waa arkay laakiin waxayan haysan meeshii ay ka bilaabi lahaayeen taa kula dabadeedna male mid dalna male mid hayadeedna male mid ciis daba taagsan male waaltaa kula yaan kuma jiro laakiin isagu wuu jecel yahay inuu ku hadlo gaarsiiyo qof hadlaya baad arkaysa wuxuu qoray aniga ila soo hadal luqada aan aqaanaa ma jirto marka hadal ma ahana qoraal iyo hayso qorin ma garanayo waana dhibaato aad weyn waa qof soddon deed iska yartahay aad ka naxayso yani meeshuu taagan waxa keenayana duruufaha jira baa keenaya dadka waxa badbaadiya oo had iyo gooraale wax walba ku haya waa dawlad la'aantana aabe u ah dabadeedna wixii cadow aad lahayd oo dhan baa ka faa'iidaystay wixii dhex galay manhajkii Soomaaliya hadda Soomaaliya gobolaha burburin baa jira waan dagaaladu ka dhicin oo manhajkii ilaa dugsiga sare u walaa lama hayo hadda meel aad lama yaqaan hay'adaha iska urursaday way ka ururiyeen way u bedeleen lacag bay ugu bedeleen waa ka iibiyeen qoomada ku dareen waa dagaal lagu la jiro dagaalkaasna in la og yahay baa ila qurux badan oo dadku ogaadaan oo waxay rabaan inay dhaqankooda ay meel mariyaan hadii kan uu yaalo kana qofku marjac u noqonayo ku noqonaya dabadeedna way qaadkaanaysaa inay kan dambe ku shubmo marka waa formaat garaynayaan waxay ku shubayaan software hor leeyo iyagu leeyihiin taasay waxay ku shubayaan daatadoodii ay xambaarsanaayeen marka fariintu waa sida dhaqanka ogaada in aad berito noqonaysaan dad aan ahayn ummadda ay sheeganayaan laakiin ummad aanay ahayn ku abtirsanaya aan ahayn luqad ahaan u ahayn
dhaqan ahaanna u ahayn sidaanu hayno mawlad bay noqonayaan dhexdhexaad oo waxaan xagga bidix iyo midig midna jirin bay noqonayaan shay macaan iyo qaraar midna lahayn dadka dhaqanka yaqaano ee ah gobol sii dhacay kuwaas sii dhacayana iyagana waxaan leeyahay war in aad dadka u faa'iideysaan kulli waad dhimanaysaan adduunkana waxa la yiri qofku haddaan wax ku soo kordhin ku siyaadin isaga siyaada ku ah inuu carbon dioxide ku sii daayo hawada cuntada yareedna la qaybsado xoogaa biyaha waxna aan u faa'iideynay beritana huyumas noqdo ciida lagu bacrimiyo jirkiisa uu noqoto de macna kordhin maayo waxa fiican in laga faa'iideysto intuu nool yahay qofku oo dadka u faa'iideeyo oo dadka da'yarta oo waxa uu hayo uu reebo oo u gudbiyo oo ku buuriyo rag badan oo dadaala way jiraan laakiin waa tiro aad u yar oo aan haysan wax macnaha isgarab taaga markay meesha taagan yihiin dadku way soo hoganayaan markay ka tagaana la arki maayo sa kala yaacayaan xataa qof hadalku shalay lahaa mid xusanaya male marka waa dhibaatooyinka waaweyn bay ka mid tahay laakiin dowladda soomaaliyana anugu kulli waxaan oran lahaa waa in ay luuqadda sidii ay ahaan jirtay u soo celiyaan ay noqoto manhaj dawliya oo wadanka oo dhan laga qaato iskuulaadka lagu dhigo dhaqankii dadka la soo celiyo oo manhajyada wadamada kale la joojiyo oo lagu qaato Kenya asalka ahaana dib loogu noqdo sidaas aanu oran lahaa sidaas dhaqankuna ku soo noqonaya saan anigu aaminsanahay waana say tahay xaqiiqda markaan aaminaadeeda ka soo dib ka saaro taas waa taa idin kale waxaan idin leenahay qolada warbaahinta war luqadda waa suxun baad ugu dhaqmaysaan idinka laftiin ninkii nin baa halkaas madaxweynaha soo guriya noqday wareed qof habaabay baa guriya noqda bari guriga wuxuu ka wadaa wadankii uu ka soo noqdo kiisii uu ka soo noqday lamana isticmaalo erey loo isticmaalo maaha dad xasaanad leh xitaa waa erey qof habaabay qofka markuu habaabay waa guriya noqda xoolo markay lumaan waa soo guriya noqdaan way jiraan laakiin qof xay wuxuu doonaba ha ahaadee ma guriya noqde system kale loo isticmaalo warbaahintu leedahay